agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Xergeeye ayaa ku dhawaaqay in 6 qof oo cusub laga helay xanuunka coronavirus Soomaaliland gudaheeda. Agaasimaha guud oo warbixinta maalinlaha ah ee wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland la wadaagay bulshada ayaa faahfaahin ka bixiyay xaaladda xanuunka coronavirus ee Soomaaliland. isagoo agaasimuhu geesta kalena ka waramay qalab iyo deeq caafimaad oo wasaaradda horumarinta caafimaadku ay hashay kuwaasi oo lagula tacaalayo xanuunka coronavirus. maanta oo ah maalin axada bisha Mayna ay tahay 10 2020 waxaynu mar kale maanta halkan isugu nimid si aynu bulshada ula wadaagno heerka iyo xaaladda guud ee xanuunka la yiraahdo COVID-19 halka uu marayo qarankeena Soomaaliland waxaan dadweynaha jecelahay inaan u sheego in xaaladdeennii hore ee ahayd 34 qof ama xaaladaheennii hore 34 qof ahaa ay ku biireen 6 qof marka waxaan bulshada Soomaaliland u sheegayaa in cadadka ama tirada xanuunka laga helay ee lagu xaqiijiyay ilaa intii ay hawsha waday wasaaradda horumarinta caafimaadku ay tiradu marayso 40 xaaladood ama 40 case 40 xaaladood 5 xaaladood oo ka mid ihi waa dhimasho oo dhimashadu waxa ay maraysaa 5 qof halka bogsiyuhu uu wali 3 qof yahay dadka inta kalena waxay u qaybsan yihiin dad isbitaalka jiifa iyo dad ladan oo meelo aan ku hayno oo ay wasaaraddu ku hayso meelo gaar ah oo lagu ilaalinaya inta xaaladooda ay negative noqonayso haddii aan ka waramo shaybaadhka waxaad ogeydeen intii uu mishiinkeenu shaqeeyay tirada shaybaadhku koraya u korodhay shalay waxaan ku darnay shaybaadhka 16 qof marka dadka guud ee laga baadhay waxa ay maraysaa 396 qof ilaa imika iyada oo aan rajaynayno in aan kordhin doono tirada shaybaadhka oo aan ku fidin doono caasimadda iyo gobolladaba iyadoo mar hore laga soo qaaday haddana mar labaad in saamballo kale loo kala diri doono gobollada deedna laga soo qaadi doono saamballo kala duwan gobollada ama shaybaadho kala duwan laga soo qaadi doono gobollada iyadoo caasimaddana dadkani ay la kulmeen iyo kuwii horeba dabagalkoodii lagu jiro iyadana baadhitaankoodii uu socdo xaaladaha kale kolba soo kordhana baadhitaankoodii uu socdo sidaa daraaddeed waxaa kaloon doonaya inaan bulshada la wadaago in weli uu socdo hawshii ahayd in dadka laga hubiyo dadka la socdo baabuurta ganacsiga in laga hubiyo calaamadihii xanuunka arrintaasi way socotaa ama screeningkaasi waa uu socdaa oo wuxuu ka socdaa goobaha dalka laga soo galo oo dhan iyada oo ay dadka la socdo baabuurta ganacsiga ee laga hubiyey 24 saacadood ee u dambeeyay calaamadaha xanuunka ay yihiin 2965 40 qof ayuu ku dhacay xanuunka corona Soomaaliland iyada oo ay u dhinteen 5 qof halka ay 3 qofna ka bogsadeen.